أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سائل علي يوتيوب كدابني سين وسرت جعلك. ما أنت كم واحد كوجايا قصة جعل. قصة واحد لسه وداعي كبر سوماليات. وحين يجع الصتي إن أقريه مجا يجوب تاي جوكتو. بس قصة أنت يسعته وحنوجو مع عذري دونا سهام. قصة واحد ولا عيسى سدة. سهام waxa ay ahayd gabar la qaba oo marwa ah waxa ayna la nooleed xaajigeeda waxa ayna ku wada noolaayeen nool ay ku wada qanacsan yihiin sida caadada ahayd xaajigeeda maalintii markii uu baxo oo uu aado shaqadiisa waxa ay waqtigeeda inta ugu badan ay ku lumin jirtay ama ay ku qaadan jirtay aaladda Facebook muddo dheer kadib waxa ay isbarteen wiil waxa ayna isku barteen si walaalnimo ah xiriirkoodii waxa uu noqday mid aad u qurux badan waxa ayna ku wada dhaqmi jireen si walaalnimo ay ku dheehan tahay farxad kalsooni reereen kala dambeyn intaba waa ay wadaagi jireen heer waxa ay gaareen in ay koolka saacado badan ku wada sheekaystaan xitaa kool maqal kool video intaba waa ay ku wada sheekaysan jireen balse waqtigeeda inta ugu badan maalintii waxa ay ku bixin jirtay gabadhaas Siham wiilkaas ayay ku bixin jirtay marka uu xaajigeeda imaado guriga qadka ma aysan isticmaali jirin oo ma aysan la hadli jirin maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa wada hadlayay wiilka iyo gabadha waxa ayna ku wada sheekaysanayeen call video wiilka ayaa waxa uu dhahay Siham waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markaas ay dhahday maxaa waay i weydiiyo waan kaga jawaabaa markaas wuxuu dhahay Siham waqti walba aad ila hadlaysid mar walba aad ila hadlaysid xitaa markii aan ku hadlayno call video waxaad igula hadashaa qolka fadhiga maxaa diiday adoo qolkaaga jiifka joogo inaad ila hadashid markaasay waxay ku dhahday aniga qolkayga jiifka anoo joogo waan kula hadli lahaa balse guriga waxa ila degan gabdha ayaa ila degan saas la ajligeeda ayaan u diidanahay inaan kugula hadlo meel ay gabdha joogaan ama yaani buuqa macnaha waxaan isweydiiyo dhahay maxaa ku dhacay gabadha mar walba aad la sheekaysanaysid waqti walba aad la qaadanaysid markii aad yaani aad ku hadlaysiin call video maxay inta badan yaani kugula hadashaa qolkaas iyo fadhiga markaas oo su'aal kale weydiiyo waxa uu dhahay Siham waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kale waxaan rabaa inaad igaga jawaabto si caadi ah yaani ay ku dheehan tahay runta markaas ay waxay dhahday i weydii waan kaga jawaabaa markaas wuxuu dhahay Siham waxaan rabaa inaan ogaado noloshaada waxaan rabaa inaan ogaado waxa adiga kugu qarsoon waxaan rabaa inaan wax badan ka ogaado wax walba adiga kugu saabsan markaas ay dhahday waad i weydiin kartaa wax walba aad u baahan tahay oo aniga i quseeyo markaas wuxuu dhahay Siham noloshaada qaybta ugu muhiimsan waa inaad igaga sheekaysaa markaas waxay dhahay oo sidee ah markaas wiilkii wuxuu dhahay Siham waxaad igaga jawaabtaa noloshaada guur miyaad soo martay gabar miyaad tahay mise gabar la qabo markaas waxay ku dhahday aniga boobe guur maana soo marin xaasna ma ihi waxaan ahay gabar wiilkii markaas wuxuu dhahay ma sha Allah waa arin fiican muddo kadib waxay wada hadlaan xiriirkoodii waxa uu noqday mid maalinba maalinta ka sii dambayso sii kobca sii xogaaga yaani farxad dhiirnaasho kalsooni intaba yaani way wadaagayeen balse arinta jirtaa waxay ahayd Siham waxa ay sameyn jirtay maalintii waqtigeeda inta ugu badan waxa ay la qaadan jirtay wiilkaas balse habeenkii qadka ma aysan soo gali jirin oo waxa ay waqti la qaadan jirtay xaajigeeda marka arinta jirtaa waxay ahayd maalin maalmaha kamid ah sida caadada ahayd xaajigeeda markuu subaxdii baxo maqribka ayuu imaan jiray markaas yaani maalin ay wada hadlayaan wiilka markaas wiilka waxa uu ku dhahay Siham adiga maxaa iga qarinaysaa markaas ay dhahdeen maxaa sabab macnaha waxbaan dareemayaa yaani waxaan dareemayaa inaad wax iga qarinaysid maalintii oo dhan aniga ayaad ila hadashaa balse habeenkii intaad ku maqan tahay markaas waxay dhahday aniga waxaan ahay dadka hurdada dheer aniga habeenkii markii cishaa laga baxo ama 2 saac markii la gaaro ama 2 habeenimo waan ka dhacay dhaaday yani waan seexdaa
waayo ma soo jeedi karo. Marka saas la ajligeeda ayaan habeenkii u maqanayo maahine meel kale kuma maqnin. Waxay sida ahaataba xiriirkoodii waxa uu noqday midba maalinta kasii dambeyso sii macaanaado, sii qurux badnaado. Sihaam waxaa ka hor imaaday xaajigeeda, waxa ay u qaaday nacayb aad u fara badan. Sihaam sida hore ay xaajigeeda ula dhaqmi jirtay ama ay u tixgelin jirtay ama ay u wanaajin jirtay, sidii hore hadda uma wanaajiso. Waxa ay ula dhaqantaa si bilaa ixtiraam ah, si bilaa dhaqan ah, si damiir xumo ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaajigeeda waxa uu dareemay Sihaam inay isbedeshay. Markaas wuxuu weydiiyey, Sihaam, maxaa kaa siya? Maxaa kugu dhacay? Maxaa sidaan iskugu bedeshay? Waa aniga sidaan kugu bartee, maxaa sidaan kaa dhigay? Bal iga dabageey, maxaa jira walaale? Ii sheeg. Markaas waxay dhahday, mid ma kuu sheegaa? Adiga waan ku nacay. Habeenna kuma rabo, maalinna kuma rabo. Markaas wuxuu dhahay, bal sabab ii sheeg, way aniga aad igu nacaysaa. Qofka hadduu qof nacayo sabab buu ku nacaa. Marka waxaan kaa doonayaa sababta aad igu nacday oo aad ii aflagaadeynayso oo aad ii leedahay habeenna kuma rabo, maalinna kuma rabo, noocaasaa tahay, ma ii sheegi kartaa Sihaame? Markaas waxay dhahday, bilaa sabab la'aan aan aniga kaaga fogaanaa, bilaa sabab la'aan aan aniga kuu nacay, bilaa sabab la'aan aan rabaa xiriirkeena inaan u burburiyo, bilaa sabab la'aan ayaan rabaa inaan kala fogaano. Sihaam waxa ay ku madax adeegtay in xaajigeeda ay kala tagaan oo uu furo. Muddo kadib waxay arrinta sidaa ahaataba oo khilaafka iyo dagaalka dhexdooda taagnaa waa la xalin waayey. Ilaa heer waxa ay gaartay famil ay isku dayaan labadan qof inay xaliyaan barbaleemka dhexdooda yaala in la ogaado, balse ugu dambeyn waa la soo ogaan waayey. Xalna waa loo waayey oo lagu xaliyo Sihaam. Muddo kadib Sihaam arrinta ay codsatay oo ahaa in xaajigeeda uu furo, xaajigeedii uu ka soo dhammaaday. Sihaamna madaxeeda wuu siiyey. Waxay sida ahaataba Sihaam waa ay ku farxday kala tagga ay kala tageen xaajigeeda, balse arrinta jirtaa waxay ahayd arrintan waxa ay u sameynaysay xaajigeeda ma aysan jecleen oo waxa ay jecel u qaaday ay rabtaa inay nolol la wadaagto wiilka kale ee aaladda Facebook ay iska barteen. Marka uu furinkeeda ka soo wareegtay muddo dheer, Sihaam waxa ay dareemaysaa oo ay qalbigeeda ka dhaadhicisay maanta noloshan haddii ay ku biirto inay helayso noloshii hore ay soo martay nolol ka macaan oo ka qurux badan. Muddo kadib waxa uu xiriirkooda socdobo, wiilkii iyo gabadhii waxa ay ku wada heshiiyeen inay isguursadaan oo ay familka iska soo doontaan. Sihaam arrintaas aad ayay ugu farxday in familka uu ka soo doonanayo wiilka, balse waxay aad ugu naxday maanta haddii uu familkaaga ka soo doonto wiilkan, wuxuu ogaanaa arrintaada adiga kuu qarsooneed oo ahayd ina adiga guur hore u soo martay oo wiilna aad soo kala tagteen. Marka waxay dhahday intuu asaga banaamanka ka ogaan lahaa, waxa fiican ina aniga si tartiiba ugu sheego. Sihaam waxa ay isku dayday inay u sheegto oo ay dhahdo, aniga xiriir ayaan soo maray, qof ayaan soo guursaday, nolol ayaan soo wadaagay. iyadoo rabto inay u sheegto ayaa welina waxaana ku jirtay sidee ugu sheegayaa, sidoo kaaga rumaysanayaa, sidoo ku aaminayaa. su'aalahaas qalbigeeda way isweydiinayeen, balse cabsida ku jirto haddii oo meel kale ka soo ogaan lahaa waa uu ka fogaan lahaa, waa uuna ka dheeraan lahaa, xiriirkeedana waa uu jari lahaa. saas ayay ku fikiraysaa, balse waxay dhahday intuu meel kale ka soo ogaan lahaa waxaa wanaagsan inaan aniga u sheego. Muddo kadib waxay cabsataba oo ay isceliso, waqtiga ay ku wada balameenna ay soo dhowdahay inay isguursadaan ay rabaan, ayay maalin maalmaha ka mid ah ay waxay samaysteen kulan. Waxay dhahday kulankan waa jaanis, waa inaad ugu sheegtaa arrimahaada ku qarsoon. Kulanka kadib markay wada sheekaysteen kaftan iyo sheeko iyo baashaal kadib, markaas waxay dhahday allayle hadda waad u sheegi kartaa oo kaama diidaya, wuu faraxsan yahay. Markaas waxay dhahday abuu waxaan rabaa inaan kuu sheego. Markaas wuxuu dhahay bal ii sheeg, maxaad iga qarinaysaa? haa ay dhahday waxbaan kaa qarinayaa, waxa aniga aan kaa qarinayo ayaan rabaa inaan kuu sheego siad u ogaatid runta. Arrintaasna waa arrin kale maahan, waa beenta ugu weyn ee aan kuu sheegay adiga, balse waxaan rabaa beentaas aniga aan kuu sheegay inaan hadda aan ka salgaarno oo aan kuu sheego runteeda.
markaasuu wuxuu dhahay bal ii sheeg maxaa waaye inaan ogaada u baahanayo. markaas waxay dhahdeen aniga markaan wada sheekaysan jirnay, markaan wada hadli jirnay, markuu xiriirkeena bilaabanayay, markaas aniga waxaan ahay gabar marwo ah oo la qabo. wax walba aad hore ii weydiisay oo ahaa shakiga aad iga shakinaysay oo aad ii dhahaysay maxaad mar walba qolka fadhiga aad uga hadashaa taleefanka, waayo qolkaaga jiifka aad taleefankaaga u aadilaasan tahay. shakigaas aad sakinaysay oo ahaa in aniga aan wax kaa qarinayo, shakigaas run oo ahay waxaan ahaa gabar marwo ah. balse maanta ma ihi marwo, adiga dartaana aan ku soo kala tagnay qofkii aniga i qabay. markaasuu wuxuu dhahay sabab ma ii sheegi kartaa Sihaamay? markaas waxay dhahdeen haa, sababta waan kuu sheegi karaa. ii sheeg ayuu dhahay. markaas sababta waxaa waaye wax walba adiga ayaa sababteed lahaay. maanta haddii aan adiga ku baran lahayn gurigayga maanan burburin lahayn. maanta haddii aan adiga ku baran lahayn jacaylkan maanan kuu qaadan lahayn. maanta haddii aan adiga ku baran lahayn xaajigayga maanan kala tegi lahayn. maanta haddii aan adiga ku baran lahayn xilliga aniga hadda aan taaganahay iyo sida aan hamigayga hadda u yahay in adiga kuu rabo maanan kuu rabi lahayn. wax walbana sababteeda adigaa lahaay, waayo adigaa i gaarsiiyey heer aan ilaabo inaan marwo ahay. waayo waxaad i siisay galgacayl, waxaad i siisay farxad, waxaad i siisay kalsooni. waxaan kaa helay wax aan ka heli waayey qofka agteyda joogay. wax walbana adiga ayaa sabab u ahay. heerkan inaan soo gaarin adiga ayaa sabab u ahay. marka waxaan rabaa beentas aan kuu sheegay inaad iga cafiso. markaas wuxuu dhahay wax fiicanaad samaysay, waa dadaashay. macnaha ma kula qurux badan tahay xiriir inaad soo burburisid, xiriir kale inaad dhistid? markaasay dhahdeen anigaba waan ogahay inaan qalad galay. qofkii aan ka soo tagayna qalad baan ka galay, adigana qalad baan kaa galay. qofkaasna waxaan ugu soo tagay adiga dartaa si aan adiga kuu helo. markaasuu wiilku wuxuu ku dhahay waad qaldan tahay, qaladaad samaysay. aniga waxaan ku leeyahay Sihaam, maanta wiilkaas sidaa aad u gashay oo aad qalbigiisa u dhaawacday oo aad dusha ugaga toogatay ayaad anigana beri igaaga tooganaysaa. ma sidee kuga aaminayaa? sidee gabar reer lahayd, famil lahayd, iimaan daro u geysa in ay shukaansato wiil kale, beri haddii aniga aan guri ku geysto oo nolol aan wadaagno sida shalay aad samaysay ayaad maantana samaynaysaa. marka aniga sideen kugu aaminaa? sideen nafsadeeda kuu siiyaa? sideen kaaga dhigtaa xaajiyadeeda oo guri aan u geystaa? ma ii sheegi kartaa middaas? markaas waxay dhahdeen ma qaldamo waa alle, aniga waan qaldamay. waxaan rabaa inaad i cafiso, mar dambana ma dhacayso. waxaan balan kaa qaadaa farxad, galgacayl intaba inaan ku siin doono. markaas wuxuu dhahay may, ma kaaga baahan dhahay. intay gorgor tahay oo xiriirkeena meel fiican maraayo, waxaan kaa codsanaa si walaaltinimo inaan aniga adiga ku kala tagno. waayo aniga ma qaabili karo qof laba wajiile ah, qof khiyaanoole ah, qof been badan. aniga ma qaabili karo. marka waxaan kaa codsanaa walaasheedii codsi iga tahay, adigana ani waxba iima dhimin, anigana waxba kuuma dhimin. balse problemka ugu weyn ayaa ahaa oo aniga aan ka shalaynayo oo aniga xitaa aan ogaan waayey in gabar marwo ah aan la sheekaystay. walaa aadaan ugu xumahay. haddii aan ogaan lahay kulama sii hadli lahayn. balse waad mahadsan tahay, xiriirna kulama sii wadi karo, lagu kala daa. waxay sidaa ahaataba wiilkii waxa uu sameeyey, gabadhii waa uu jaray. waxa uuna dhahay xiriir ma kula sii wadi karo, nololna ma kula wadaagi karo. marka waxaan kaa codsanaa inaan kala tagno aniga adiga. Sihaam waxa ay dhahday aniga ma kaa maarmi karo, haweenna ma kaa maarmi karo. dartaa wax badan ayaa u sameeyey, haddana waxyaabahaas iyo waxyaabo ka daran waan u samayn karaa dhahday. markaas wuxuu dhahay i dhegeyso, wax walbaad samaysid adiga ayay kuu qaseeyaan, wax walba aad samaysidna adiga ayay ku anfacayaan.
wax walba aad samaysin adiga iyo ilaahigaaga ayaa xisaabtamaya. aniga shaqo kuma lihi walahi. nafsadaada ka taxadir, ka fikir, adiga ku taala. wassalaamu calaykum. markuu yacni sidaas ku dhahay ayaa Sihaam waxa ay samaysay ayay garan waysay. xaggana way ka soo tagtay oo yacni waxba uma yaalo. meesha ay u soo cararaysayna oo ay ka rabtay inay rajo ka heshana waa ay ka waayday rajada ay ka rabtay. ugu dambeyn qisadan waxa ila soo wadaagay gabadhaas, balse magacaan u isticmaalayay magacaas waa Sihaam. aniga ayaa ugu talagalay. Sihaam qisadan waxa ay ugu soo dhiibtay inay tusaale u noqoto dadka qaar. waxay dhahday aniga maanta qalad ayaan galay, weliba waxaan galay qalad aad u weyn. waxaan qalad ka galay dhahday Allah subxaanahu wa tacaala. sababtoo ah gabadha haddii ay marwo tahay ama ay xaas tahay ma u banaano inay la sheekaysato rag kale. ugu dambeyn Sihaam iyo wiilkii xiriirkoodii meesha ayuu ku burburay, meesha ayayna ku kala tageen. qisadana meesha ayay ku soo dhammaatay.